dowladda Iran oo muddo 4 bilood dagaal ay ku socdeen ay waxa la sheegay in iminka ay si rasmi ah ay u guudi jirto sameeyashada madaxyada nuclear-ka sida ay sheegayso warbaahinta CNN. sawirada dayax-gacmeedka ayaa muujinaya in Iran ay dib u dhis ay ku wado xarumaha nuclear-ka iyo waliba gantaalada inkastoo uu jiro heshiis ay la gashay Mareykanka sida ay sheegtay warbixin sirdoon oo gaar ah oo ay heshay CNN ay waxay muujinaysaa dib u dhis cusub iyo waliba dhaqdhaqaaq gaadiid oo laga arkay xarun badan oo Iran ay ku leedahay nuclear-ka iyo waliba gantaalada warbixin muuqaal oo ay sameysay CNN ayaa lagu ogaaday dhaqdhaqaaqyo cusub oo dhacay dabiiqadii June iyo waliba horaantii Luulyo oo ay nimanka gudguudi jirno kuwaas oo ka dhacay xarumo gantaalo iyo waliba goobaha nuclear-ka Iran arrimahan ayaa si gaar ah waxa looga arkay xarumaha nuclear-ka waxna ay dhalinayaan su'aalo muhiim oo ku saabsan in Tehran ay jabisay heshiiskii is-afgaradka ay la saxeexatay Mareykanka 17 June sida CNN ay tiri sawirada dayax-gacmeedka ayaa waxaa la helay xilli kooban oo dowladda Mareykanku si ku meel gaar ah u fududeysay xanimaad saarneed shirkadaha ganacsiga ee bixiya sawirada dayax-gacmeedkaasi yeeshay iyadoo howlaha military ee Mareykanka dib ay u bilowdeen xanimaadaasi mar kale ayaa dib loo soo celiyay sida falanqayntu ay sheegayso dhaqdhaqaaq muuqda ayaa waxa laga arkay gudaha xarunta militariga ee lagu magacaabo Pershing gaar ahaan goob loo yaqaano Teleqan 2 taas oo khubarada sirdoonku rumaysan yihiin in lagu kediyo walxo qarxa oo gaar ah oo loo adeegsado hubka nuclear-ka CNN-ka ayaa goobtan waxa sheegay inay la qiimeysay iyadoo kaashanaysa Institute for Science and International Security waxaana ay isbarbar dhigtay sawirro la qaaday 22 June iyo waliba 7 Luulyo sawirradu waxay muujinayaan in dib loo dayactirayo godad iyo waliba burbur ka dhashay duqeymihii hore ee u fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil isla waqtigaasi xarun dhulka hoostiis ku taalo oo si adag loo ilaaliyo laguna magacaabo Bikakis Mountain ayaa iyana sawirro la qaaday 22 June lagu arkay gaadi si joogto u galaya ugana baxaya marnada tunnelka dhaqdhaqaaqan ayaa waxa uu dhacay xilli heshiiska diblomaasiyadeed ee cusub wali uu dhaqan galay dowladda Iran iyo waliba dowladda Mareykanka labaduba waxa la weydiistay inay ka hadlaan sawirada la helay afayeen u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ee lagu magacaabo Pentagon ayaa waxa uu diiday inuu faalo ka bixiyo isagoo sheegay inaysan ka hadli karin xaaladaha goobaha dagaalka ama arrimaha sirdoonka sabab la xiriira amniga howlgalka dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii waxa uu sheegay in Iran ay codsatay in wadahadalada la sii wado balse uu cadeeyay in xabajoojintii ay dhamaatay Trump waxa uu bartiisa Truth Social uu ku qoray Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxay naga codsatay inaan sii wadno wada hadalka waan ogolaanay laakiin Mareykanku waxa uu si cad ugu sheegay in xabajoojintu ay dhamaatay warbaahinta Axios oo soo xiganaysa ila xoogaal ayana waxay sheegtay in wareeg cusub oo wada hadallo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran la filayo inuu dhaco toddobaadka soo socda waxaana suurtagal ah in lagu qabto dalka Switzerland warbixintu waxay intaas ay ku dartay in dhexdhexaadiyaasha gobolka ay ka shaqeynayaan dejinta xiisadaha iyo waliba abuuridda jawi dib loogu bilaabi karo wada hadallada kadib xiisadihii ugu dambeeyay si kastaba ha ahaatee wakaaladda wararka ee Faris oo xiriir la leh ilaalada kacaanka Iran ayaa iyana si degdeg waxay u beenisay wararka sheegaya wada hadallo cusub Trump ayaa horaantii toddobaadkan amar waxa uu ku bixiyay weerar military oo lagu qaado bartilmaameedyo ku yaala Iran kadib markii Iran lagu eedeeyay weerar ka dhan ah maraakiibta marayay maranbiyoodka Hormuz Trump ayaa sidoo kale wariyaasha u sheegay inta weerarada ay socdeen Iran waa ay nala soo xiriirtay waxay si aad ah u doonayeen heshiis laakiin ma hubo inay yihiin kuwa lagu kalsoonaan karo ama in heshiiskan uu ilaalin doonaan taasina waa dhibaatada jirta sida kaliya warbaahinta Ugbad TV aad ku taageeri kartid waa inaad walaal aad siisid subscribe ama like iyo share iyo comment intaba hanagala baqayn oo ku baahsan tahay